dhibaatada jirta qofku markaanu luuqadda aqoonin qofku laba nooc midunba ma noqdaa inuu iska cadhoodo mar walba uu qofkii hadlayaba moodo inuu isaga hadal hayo iyo inuu iska qoslo xataa haddii la caayayo marka yacni luuqad la-aanta iyo qofku markaanu luuqad garanayn oo waddan luuqadiisa aanu garanayn u yimaado wax ka dhib badan oo ka xanuun badani ma jiraan bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waa idin salaamay walaalaha janalkeenan ku xidhan samkuukina culture intay habeenutay habeen wanaagsan intay maalinutayna maalin wanaagsan goor kasta iyo goob kastaynu joognana alla subxana watacaala khayr baynu weydiisanaynaa intaa ka bacdi walaalaha waxaa lay cusub soo dhawaada waa mahadsantihiin kusoo biiristiisna iyo imaanshaha noo timaadeen walaalihii horena waxaa lay dhammaantii waa mahadsantihiin jazaakum allahu khayran ka qayb qaadashada janalkeenan iyo faafintiisa waxay noo ballanaa qofkii aan fadlan subscribe waxaanu subscribe noqo insha allah eeg inuu yacni calaamada subscribe inay guduud kaa tahay ama casaan hadday guduud ama casaan kaa tahay fadlan taaba madow ha kuu noqoto edna ha u dambayso haddii ay maxay tahay kuu tahay subscribe madow kuu tahayna waad fiicantay mar walba laygta inala ogow intaa ka bacdi walaalayaalo maanta waxaynoo aynu bilaabaynaa barnaamijkeena ha maxaa iga qabsaday qurba waxaan filayaa qurba markaynu maqallo waddankeeniina aynu joognay qof walba yacni nimco ayuunbuu halkaas soo dhiganayaa iyo khayr iyo baraka iyo iyanu mid walba talo imise shandadooda lacagaad buuxin talo imise guribaad soo dhisan talo imise gaadhaad soo iibsan talo maxaa caynkan iyo caynkan laakiin ma eegna inay dhinac kale oo dhibaato ah iman karto marka inagu maanta de wixii khayr iyo wanaagi waaba iska jiraano yacni ma ku fogaanayno laakiin waxaynu eegaynaa yacni dhibaatooyinka qofka lasoo kulmi kara markuu waddanku cusub yahay haddaba inan walaasheena maasha allah inala soo wadaagtay barnaamijkan maanta inantaa waxaa la dhahdaa warsan waxaanay ku nooshay waddanka Australia gaar ahaan magaalada waxay ku nooshahay Adelaide inantaa warsan marka taariikhdeedii ayay inooga sheekaynaysaa ilaa markay Afrika ka soo baxaysay ilaa intay soo socotay ilaa markay Australia timi Australia waxay kala kulantay haddana yacni maray noqotay Afrika yacni barnaamijyo noocaas oo badan bay inoo soo daysay waxaan filayaa ilaa 2-3 inuu socon doono program inuu kusoo dayn doono waxay marka hore inooga sheekanaysaa travelkeedii ama socdaalkeedii Africa to Australia Africa ilaa Australia haddana shaqadeedii iyo luuqadii dhibaatadii kasoo gaadhay haddana waxay inooga sheekanaysaa maxay haytay xarig loogu geystay waddan Asia ay maraysay marka ay ku ahayd socdaal iyo waxa sababay fadlan la soco haddaba insha Allah ilaa dhamaadka waxay tii walaashan warsan waxaan ahaabay tiri gabadh u dhalatay shanta yacni Soomaaliyeed meel ka mid ah wali waxay waddanka Soomaaliya la isku oran jiraan anagu dhashay bay tiri waxay tii dacwad bay xariisneed Australia waxay tii oo helkaygu xareeyay waxay tii waan soo baxay Soomaaliyan ka imi Ethiopian joogay dacwadii baa ii soo baxday ama fiisihii waxay tiri xilligii dhoofkaygii baa la gaaray waxay tiri passport fiisihii baa la soo diyaariyay tigidhkiiba waxay tiri aan soo goostay waxay tii ka bacdina waxaan soo aaday airportkii magaalada ku yaalay Addis Ababa International Airport aan soo gaaray bay tiri airportka waxay markaa nimi asxaabi waxay tii ehelba isoo maxay tii nabadgeliyeen ayaan qaybtii immigrationka imi waxaa laygu soo dhuftay exitkii ama bixitaankii qaybtii baan ka soo gudbay bay tiri waxay tii waxaan imi qayb sare oo lagu sugo diyaaradaha halkaas bay tii halka iga bilaabantay dhaga la'aantu halkan ku dhaga beelay halkaas ahayd bay inantan markaan leeyahay dhaga la'aan maaha yacni inay dhagihii Ilaahay waa subxaanahu wa ta'aala ay beeshay laakiin qofku markuu luuqadu oo garan waayo ama luuqadiisii hore waxaan ku intuu ka guuro luuqad kale u socdo ama dadku ku hareeraysan oo ag jooga fahmi waayo dhagoole waxa ma dhaama waxay tii halkii baan imi waxay tii anigu qolkii ku sugaya diyaaradaydii ayaa waxay tii waxa ii yimi adeer Soomaaliya wuu isalaamay adeer ma Soomaaliyeed baa tahay haa adeeradna Soomaali baa tahay haa adeer xaqaad ku socotaa adeer waxaan ku socdaa baan ku warbeetay waddanka Australia sida anna adeer waxaan ku socdaa Ingiriiskan adeer ka imi markii hore jigjigaan imi magaalada jigjiga halkaasaan ku aroostay hadda arooskii baan adeer ka soo baxay ka bacdina Ingiriiskaygii baan ku noqonayaa adeerkayga waxaan ku qiyaasay da'da 70 ilaa 80 inta u dhow jir waxay tiri haye sida adeer hore ma u dhooftay markaasaan idhabaytay may adeer waa markii ugu horeysay gobolada Soomaaliya bari waan dhoofay diyaarad waan raacay daalan raacay waxay tii daalada waxaan moodayay bay diyaarad ka khatarsan inaanay jirinba adeer daalan ma raacay laakiin adeer daa wali qurbo uma dhoofin
markaasuu yidhi adeer haddaba hadday saatay xaaladdu daalo way ka duwan tahay aniguun idaba soco. waxay dee anu dee qof ka yar baanahay waan ka tallaabo dheeraynayaa laakiin waxay dee dantu waxay igu khasabtay waxba ma garanayo inaan adeer daba socdo. waxay tii waxaanu meeshii fadhinaba waxay tii sameecada naga dulqayliyey. waxay tii anigu ma garanayo sameecadahan waxay leeyihiin laakiin waxay tii dadkaasumaan isha ka eeganaya oo marka hore waxay tii nafteeda waxaan kula soo ballamay waxba ma garanaysid laakiinse dadkaad meel la fadhidaa waxay sameeyaan sameeyoon hadday dhaqaaqaan dhaqaaq hadday fadhiistaan fadhiiso hadday si sare taagan si sare taag waxay sameeyaanu samee. waxta adeer bay guri adeer kaca kaca saan bay adeer maxaa suu waa adeer sameecada looga yeerayo diyaaradii baa lagu xaroonaya soo kac. waxay tii waan soo kacay soo daba gal adeer. waxay tii adeerkay waan daba socdaa bay tii isna xuf dee waxdii kama tallaabo dheeraynayo isagu aqoonba waxay tii ambidayaayo waxay tii waan daba ordaya. waxay tii waxaanu samaynay saan u soo soconay aan moodayay bay tii deentaanu airportka ka baxno inaan waxay tii diyaaradii daalo kala koraayo oo diyaaradda daalo intii xasuusatee salaamba inta la soo riixaa la hoos dhigi jiray ayay tii. markaas waxay tii diyaaraddu way dhaqdhaqaaqi jiray salaamka markaad korayso oo waxay tii sii faydfaydanaysa leedaad toobka yar kor u faydataad dhexda ku xidhatid ayaanba waxay tii aanu dhuun saasoo kale u socnay meelaad gacan moodo dusha ka dadan ayaaba waxaanu gallay bay tii meelaad moodo aqal Soomaali qurux badan oo si cajiib loo dhisay aqalkii 2 daryaala la oran jiray oo waxay tii geesna inama yaryar safayn wiilal yar qurux badan moodo in la isku simay geesna waxay gabdho yar qurux badan oo la isku simay moodo in safayn waxay tii binaxdin halkaas iga bilaabantay. kii sheedaan haba wuxuu igu dhibay markii ugu soo tuuray na meeshu ma aakhira ku nuxur lacayntii baa waa maxay meeshan weligayna waxay tii TV-na kama daawan dad diyaarad ka shaqeeya meel kalena kuma arag. waxay tii waan naxay adeer waxay tii inay waxna yiraahdeen waan ogahay bay tii damala soo galay ma waxay nagu yiraahdeen bay tii. waxay tii adeer bay tii adeer soo soco kursigan fadhiistay ag fadhiisto. waxay tii inuu kursigaagu number leeyahay iyo in kala ma kala garanayo bay tii. waxay tii soo socday waxay tii adeer waxay tii anu ma garanayo wuxuu adeer fadhiiso halkan. waxay tii waan ag fadhiistay waxay tii wuu ii sheekaynay wuxuu adeer dhageyso dadkan xaaraantii xalaasha ma kala yaqaanaan wax kasto ay ku keenaan ha cunin iska cili adeer shaaha yaroo bigaysa iyo roodhi yaroo qalalan intaasu adeer ka cun waxa laala waxa moorsan adeer afka ka xidhan keenayso martii adeer waa xaaraan afka saaran. waxay tii xataa show diyaarad bay tii markii dambe gadaalka ogaaday inay imaaraad ahayd xalaal ahayd wixii oo dhan ma garanayn. adeerna show waxba igu muudhaamino qof weyn oo qurbaha tagay ayuu ahaa qof xalaal quudashana wuu ahaayo iska ilaalinaya waxan oo isaga laftiisu diyaaradda fikrad kama haysanin. hay'adan ku dhibay adeer waxay tii markaan diyaaradii korray diyaaraddu waxay tii waxaad moodaa aqal Soomaali gabadh quru oo si cajiib leh inta loo dhisay aroos loo dhisay aqalkii 2 daryaalaha la oran jiray. waxay tii khan bakhan waxay tii kolba dhalinyaro wadad qurux badan baa dhex socda sidan indhuhum baan kaagayaa bay tii. waxay markay diyaaradda nala kacday markay nala kacdayna waxay saaw gariirteen waxay tii watan naftiba iga dhici gaadhay waxba ma la kursigii qabsaday adeer hanixin adeer. waxay tii diyaaradda nala soo kacday markaan waxay tii mala saacad iyo wax soconaan Dubai ku sii jeedno ayaa waxay tii naloo keenay cuntadii la riixayo wakaana loo soo dhigay waxay adeer roodhida iyo shaaha bigayska soo maadarka labadaasan kugu ogay wax kale adeer cunin inta ilaahay meeshu kuugu talagalay aad tagayso oo cunto lagu siinayo xalaal adeer labadaas cun wax kale cunin. haye waxay tii labadii maan ka cunay isnayntii buu ka cunay waa la celiyay wixii kale oo dhan. cuntadii markii la celiyay ayaa diyaaradda soo socotay waxay soo socotay Dubai bay nala soo fadhiisatay airport. waxay tii dadkii baa digay waxaan ku dhigay adeer miyeenaan degayn asulmay adeer sugma degayne waxa la keenayaa gaari wuxuu wheelchair la igu riixo ma wheelchair baan garanayaa bay tii. asaan adeer muxuu yahay waxaasuna suu adeer gaari xuriyaan oo adeer soo digan soconaya. waxay tii waan oo waxay niyadaan iska leeyahay adeer ka soo xitaa soo aroostay ma suu maya adeer xaalad saamaheed tiga soo kaarka ma aragtid dawladda adeer siisay anu adeer qofta aanahay dawladda kaarka siisay airportka inta leeg ma lugayn karo waa la riixayay adu marka lay keeno gaari gacanka la igu riixayo adeer kaana dabadoon qabsay daba orodon. haye adeer waxay tii halkii baan joognay waxay tii gaarigii baa loo keenay adeerkay markii diyaaradii laga dhamaaday waxay tii lagu soo kaxay adeerkay gaarigii ku fadhiisay waxaan niyadan iska idhibay tii adeerka haday gabadhu soo guursaday arki lahayd yaa maanta baxar baa halka ka dhici lahaa. waxay tii gaarigii waxay tii adeer lagu riix
markaan saa uga soo baxnay diyaaradii ayaa maxay tahay iyada inantan markaa waxaa igu sugayay bay tii dibadda qoladii waxay tahay tigirka kasoo gastay IOM sida la odhan jiray kuwiibaa waxay tiri i qaaday bal haddaba insha allah sheekadii inta dambe waa inoo wiiga dambe asalaamu calaykum.